Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meel kastoo naga dheehanaysa halkanina waa janalkiinii cagta iyo dunida CID Pro TV iyo wararka wareysiyada waxaan u soo joogay oo aad ka dheehataan wararkii ugu dambeeyay caalamka oo tifaftiran. Maalintu waa maalin Axad waa 23 Agoosto 2026. CID Pro TV iyo qodobadii adduunka iyo wararka iminka la hadalhayo. Wararka ka imanaya dhinaca waddankaasi Ciraaq waxay shaaca ka qaadeen in maamulayaasha Ciraaq ay sheegeen in maraakiibtooda dhinaca shidaalka loo ogolaaday inay maraan gacanka Hormuz. Arrintaasina ay ku timid wada hadal u socday muddaba marka la fiiriyo wadamada Iran iyo waliba waddankaasi Ciraaq. Dowladda Iran ayaa maamulayaashooda magaalada Tehran waxay ka sheegeen in maraakiibta shidaalka ee Ciraaq loo ogolaaday inay gudbaan iyagoo isla soconaya, taasoo macnaheedu uu yahay inay ka duwan yihiin maraakiibta kale ee hore looga joojiyay tan iyo 28 bishii February. Ciraaq iyo waliba Iran in dhawaalaba wada hadal ayaa u socday ku saabsan qaabka iyo sida isaga kaashan karaan arrimo badan xagga amniga iyo waliba dhinaca tamarta iyo waliba dhinaca ganacsiga. Toddobaadkan ayaa waxaa tegay magaalada Baghdad ee xarunta dalka Ciraaq afhayeenka baarlamaanka waddankaasi Iran isagoo wada hadal la yeeshay maamulayaasha waddankaasi Baghdad oo ka mid yahay madaxweynaha waddankaasi Nizar Hamidi. waxayna ka wada hadleen xiriirka u dhaxeeya qotada dheer ee Ciraaq iyo Iran iyo arrimaha haatan ka taagan gacanka Hormuz oo ay sheegeen culays xoog leh inuu jiro, taasoo Ciraaq hogaamiyaashooda ay ka codsadeen dowladda Iran inay ogolaato maraakiibta shidaalka ee Ciraaq inay ka gudbaan labada dhinac markay u socdaan sii socod iyo soo socod intaba. Arrintaasi waa arrin ay si aad ugu farxeen go'aanka iyo natiijada maamulayaasha magaalada Baghdad ee dalkaasi Ciraaq. laakiinse dowladda Iran horey waxay u sheegtay markab gudbi kara inaanu jirin haddii aanu amar ka haysan marka la fiiriyo maamulayaasha dalka Iran. Arrintaasina waa arrinta keentay khilaafka dhinaca Ameerikaanka oo iyagu laftoodu ay rabeen inay gacanta ku dhigaan oo ay maamulaan, isla markaasina la xiray dekadaha waddankaasi Iran maraakiibtii soo geli lahayd iyo kuwii ka bixi lahayd intaba. laakiinse tallaabadan iminka Iran ay ugu ogolaanayso waddankaasi Ciraaq maraakiibtooda shidaalku inay maraan waa arrin ka duwan arrimihii taagnaa 6 bilood ee la soo dhaafay. wararka ka imanaya magaalada Dimashq ee xarunta dalka Suuriya waxay sheegeen maalmo gudahood markii labaad inay ciidamada Israa'iil ay daroonno iyo gantaale ay ku weerareen waddankaasi Suuriya goobo ka tirsan. iminka warbixinta u dambeysay waxa ay sheegtay shalay oo Sabti ah in weerar lagu qaaday agagaarka ee magaalada Dimashq, arrintaas oo ay cambaareeyeen maamulayaasha waddankaasi Syria iyo wasaaradooda arrimaha dibadda. dowladda waddankaasi Israa'iil waxay qiil ka dhigaysaa inay baacsanayso qoli ay u aragto kuwa fidnawalayaala amaba dhib ku haya marka la fiiriyo waddankaasi Israa'iil, laakiin arrintaasi cid xaqiijin karta aanay jirin. maalmo ka hor ayay ahayd markii ciidamada waddankaasi Israa'iil ay weerar ku qaadeen saldhig dhinaca cirka ah ee militariga dalka Suuriya ay ku leeyihiin meel aan ka fogeyn Idlib iyo agagaarka xuduudda Syria iyo waliba waddankaasi Turkiga ee gudaha dalka Suuriya oo lagu magacaabo Al-Dhuhr Airbase. arrintaasi cambaareed xoog leh waxaa ku tuuray Ameerikaanka iyo waliba dalka Suuriya iyo waliba dalka Turkiga. waxaa hadlay safiirka Ameerikaanka ka fadhiya magaalada Ankara ee xarunta waddankaasi Turkiga oo lagu magacaabo Tom Bragg, isla markaasina ah ergey gaar ah oo Ameerikaanka u qaabilsan dalka Suuriya. waxa uu yiri 24 saac ugu dambeeyay isagoo warbaahinta la hadlayay Tom Bragg inaanay dowladda Israa'iil Ameerikaanka la socodsiinin weerarka ay ku qaadaysa saldhigaasi dhinaca cirka ee ku yaala gudaha Suuriya ee xuduudda waddanka Turkiga. dowladda Mareykankuna ay cambaareynaysa falalka noocaasi oo kale ah. Turkiga ayaa iyaguna sidaasi oo kale cambaareeyay iyagoo ku tilmaamay fal argagixiso oo ay tahay in laga hortago. laakiin dowladda Israa'iil wasiirkooda gaashaandhigga Israa'iil Katz ayaa isagu waxa uu sheegay warbaahintana u sheegay in qoliyaha ku shaqada leh Ameerikaanka ay u sheegeen inay hadday yihiin Israa'iil ay weerari doonaan saldhigaasi dhinaca cirka ee ku yaala xuduudda dhinaca Turkiga, laakiin gudaha waddanka Suuriya. waxaa iskhilaafsan hadallada ka imanaya wasiirka gaashaandhigga ee waddankaasi Israa'iil iyo safiirka Ameerikaanka ee Turkiga, isla markaasina ah ergey u qaabilsan dalka Suuriya Tom Bragg. arrimahaasi waxay ahaayeen kuwo guluf colaadeed keenaya marka la fiiriyo waqtiyadii ugu dambeeyay oo intii Ahmed al-Shara xukunka Suuriya uu qabtay oo ay Bashar Assad xukunka kala wareegeen kadib markay dagaal ku qaadeen bishii December 2024 ilaa iminka oo la joogo bisha Agoosto 2026. waqtiyo kala duwan meelo kala duwan ciidamada Israa'iil ay weerareen halkaas oo ay dhimasho iyo dhaawac iyo burbur intaba ay geysteen. weerarkan ugu dambeeyay saldhigga Al-Dhuhr
waxa ujeedkiisu uu yahay iyagoo isleh hadday yihiin ciidamada waddanka Israa'iil Turkiga ayaa ciidamo iyo qalab military keeni kara saldhigaasi maadaama 70 kilomitir oo kaliya uu u jiro dhinaca xuduudda waddankaasi Turkiga. wararka ka imanaya marka la fiiriyo UK iyo Faransiiska ayaa 102 ambassador ama safiiro hore oo ka kala tirsan Faransiiska iyo weliba waddanka UK waxay qoreen warqad furan oo ay u qorayaan dalalkooda Faransiiska iyo UK waxayna ka codsanayaan in cunaqabatayn culus la saaro dalka Israa'iil sababtoo ah dhibaataynta iyo xasuuqa iyo bahdilida iyo dhibka joogtada iyo qaxinta ay ku hayaan dadka daanta galbeed iyo guud ahaan reer Gaza. 102 safiiradii hore UK iyo Faransiiska ka fadhiyi jiray meelo badan sida Jumciyadda Qurumaha ka dhaxaysay adduunyada inteeda kale waxay ka codsanayaan Faransiiska iyo weliba UK talaabo adag inay qaataan mar haddii la arkay nimanka iyagu settlerska amaba degan sida sharci darrada ah daanta galbeed inay culays xoog leh ay wadaan oo ay taageero ka helayaan dowladda dhexe ee dalkaasi Israa'iil taasoo ujeedku uu yahay in la burburiyo dhulka la boobo taasoo aqritaanka meesha ka saari karta dowlad ay Falastiin leedahay iyo dhul ay leedahay in la helo. safiiradaas waxaa ka mid ah nin isagu dowladda Britain u fadhiyi jiray Jumciyadda Qurumaha ka dhaxaysa magaalada New York oo lagu magacaabo Jeremy Greenstock. waxaa kale oo ka mid ah nin isagu agaasimo guud muddo dheer bariga dhexe uga ahaan jiray dowladda Faransiiska ee lagu magacaabo Denis Bouchard. intuba waxay sheegeen in laga rabo dowladaha UK iyo Faransiiska oo magac weyn ku leh dhinaca dimuqraadiyaddu inay tallaabo adag qaataan oo ay cadaadis saaraan dowladda waddankaasi Israa'iil. waxaa kale oo ka mid ah safiiradaasi safiiro kale oo iyaguna hore u fadhiyi jiray marka la fiiriyo dalalka Qatar iyo Iran iyo Yemen iyo Liibiya oo ka kala tirsan Faransiiska iyo weliba UK waxay yiraahdeen dowladaheena UK iyo Faransiiska lagama rabo af kaliya waxaa laga rabaa tallaabo adag inay qaataan oo la joojiyo dhibka laga wada daanta galbeed oo lagu dadaalo in baahida ka jirta Gaza gargaarka la gaarsiiyo halka loogu talagalay in la ilaaliyo nidaamka iyo bini'aadanimada taas ayaan ka doonaynaa bay yiraahdeen xukuumadeena aanu muddo dheer safiirada dibadda uga ahayn diblomaasiyiin ee UK iyo weliba Faransiiska. halkaad warkaas sida tooska ugala socotaan waa CID Pro TV ee wararka wareysiyada iyo waxaan u soo joogay iminkana ku soo dhawaada qadar xayisiisa iyo mega oo ah xarun dhinaca daaweynta ilkaha. laba xarumood waxa ay ku taala magaalada Istanbul xarunna waxay ku taala magaalada Ankara ee xarunta waddanka Turkiga. waxaan amaanba bulshada la socodsiinayaa in mega dandiista oo ku taala magaalada Istanbul laba xarumood iyo meel ku taala dalka Turkiga qaar ahaan magaalada madaxda Ankara in lagu talagalay in lagu daaweeyo cudurrada kala duwan ee ku dhaca afka taasoo macnaheedu uu yahay in lagu daweynayo si kastoo xanuunkaagu u jiro. waan qabaa waa aaminsanahay qof kasta oo Soomaaliyeed oo xanuunkaasi qaba inuu jeclaan lahaa in laga daweeyo sidaa darteed dadka ka yimaada meelaha kala duwan sida Mareykanka iyo Yurub, Australia, New Zealand, Afrika iyo Carabta dhammaantood waxay diyaar u yihiin mega dandiisti dadkan ila taageena dhinaca bidixda dhaqaatiirta buluga iyo weliba dadka kalkaaliyaasha iyo maamulkuba inay si fiican oo qiimo leh u soo dhaweeyaan sida horeba ugu soo dhaweey jireen. waan hubaa adigoo faraxsan inaad iman doontid adoo farxaddaadu ay zaa'id tahay oo mahad celinay inaad laaban doontid meel kastoo aad joogtaan yaan la moogaan inaad la xiriirtaan mega dandiisto aad telefoonka shaashadda ka arkaysaan anigoo cagta xaajiyana farxad bay ii tahay inaan idinla wadaago muuqaalkan iyo weliba inaan idiin sheego xaaladda wanaagsan ee halka ka jirtee lagu dabiibayo ilkahaagu xanuun kastoo ay qabaan. wararka ka imanaya dalka Canada waxay shaaca ka qaadeen in ra'iisul wasaaraha dalka Canada Mark Carney uu ka hadlay wadahadalkii burburay dhinaca ganacsiga ee Canada iyo Ameerikaanka. Mark Carney oo la hadlayay shacabka reer Canada wuxuu u sheegay inuu aad isugu dayay in wadahadalkaasi lagu guuleysto dhinaca ganacsiga Ameerikaanka iyo weliba waddankaasi Canada laakiin taasi aanay suurtagal noqon. uuna sheegay labadii waddan ee wadaagta ah ee xiriirka lahaa dhinacyo badan ah in iminka ay ku guuldareysteen dhinaca ganacsiga in markaasi laga gaaro heshiis kama dambaysa. labada dal Mareykanka iyo Canada labaduba waxay qolo walba qolada kale ay ku eedeynaysaa inay iyadoo mas'uul ka tahay iyadoo daqiiqadihii ugu dambeeyay ay sheegeen in lagu kala kaco oo isfaham darro ay meesha ka jirto. laakiinse ra'iisul wasaaraha dalka Canada wuxuu sheegay qaniyo ayaa ka fujisa waxa uu ugu yeeray oo ah inay ku dadaali doonaan iyaga laftooda aarsashadooda iyo inay waxyaabaha Ameerikaanka ka yimaada canshuur ay saaraan sida waxyaabaha Canada ka taga ee la geeyo dalka Mareykanka ba canshuur loo soo saaray iyadoo horeba canshuuro loogu soo saaro ama loogu soo rogay waxyaabaha laga keeno waddankaasi Canada sida birta, aluminiyamka iyo caanaha oo kale in iminkana 50% la soo saaray. laakiinse ra'iisul wasaare Mark Carney ra'iisul wasaaraha dalka Canada
wuxuu shaaca ka qaaday marka laga bilaabo 8 bisha September ee soo socota ee sanadkan 2026 inay jiri doonto wuxuu ugu yeeray $, taasoo macnaheedu uu noqonayo inay iyaguna ay tallaabooyin qaadanayaan haddii ay yihiin dowladda Canada marka laga hadlayo waxyaabaha ka yimaada Mareykanka oo canshuur la saarayo iyo waxyaabaha Canada ka tago sidaas oo kale canshuur loo saarayo. xisbiga ugu weyn ee dhinaca mucaaradka conservative-ka ee dalka Canada ayaa hogaamiyayaashooda waxay sheegeen inay taageersan yihiin mowqifka uu qaatay ra'iisul wasaaraha xisbiga talada haya ee liberaalka ee Mark Carney. waxa kale oo la qabo fikirkaasi oo taageersan qolyaha lagu magacaabo primarieska oo ah ragga gobolada xukuma waddankaasi Canada. dowladda Canada muddo dheer ayay xiriir lahaayeen xagga ganacsiga iyo dhinacyo badanba, laakiin tan iyo intii uu soo laabtay Donald J. Trump culays xoog leh ayuu la yimid oo ku saabsan farafaraynta iyo faragelinta heshiiskii xorta ahaa ee dhinaca ganacsiga ee muddaba u dhexeeyay madaxweyneyaal isbedelay iyo ra'iisul wasaare isbedelay labada dhinac ee Mareykanka iyo Canada oo ahaa ganacsigii xorta ahaa ee America, Canada iyo weliba waddankaasi Mexico oo saddexduba ay wadaag yihiin. Mareykanka wararka ka imanaya waxay sheegeen tan iyo intii Trump uu culeysyada la yimid inuu canshuuraha ku rogo marka la fiiriyo wadamo badan oo dunida ah sida Canada in dadka Mareykanka laftooda nolol maalmeedka ay ka dareemeen culays xoog leh oo ah in waxyaabaha uu saaray lacagta adag ay keenayso qiimaha dadka macaamiisha waxyaabaha ay ku iibsadaan inay markaasi ay kor u kacayeen. qodobka ugu dambeeya wararkeenuna wuxuu ku saabsan yahay xogayaha guud ee Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa Antonio Guterres ayaa jagada banayn doona bisha December ee sanadkan 2026 taasoo ujeedku uu ahaa in la sii eegayay maalmihii ugu dambeeyay qaabka iyo sida uu u iman karo laguna heli karo iyadoo la dooranayo shakhsiga bedeli doona marka loo fiiriyo Antonio Guterres. bishii la soo dhaafay ee July ayaa 15 waddan ee ku jira golaha amniga ee Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa waxay sameeyeen afti qarsoodiya iyo tijaabo iyagoo eegayay sida ay u kala horeyn karaan. bishaas July waxaa kaalinta koowaad 10 dhibcood ku heshay haweeneyda lagu magacaabo Rebecca Greenspan oo ah haweeney ka soo jeeda dalka Costa Rica ee Latin America oo iyadoo hore u noqotay madaxweyne ku-xigeenka Costa Rica. kaalinta labaad bishaas July waxay ahayd Caroline Rodriguez Birket oo ah ambassadorka iyo safiirka u fadhiya Guyana, New York, horena u ahaan jirtay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. kaalinta saddexaad bishii July Rafael Grossi oo Argentina oo isagoo madax ka ah hay'adda atomikada adduunka. laakiin 24 saac ka hor ayaa mar kale 15 dal ee golaha amniga ee Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa waa bishan August waxay fiiriyeen mar kale qaabka iyo sida u kala horeyn karaan iyadoo la eegay afti lagu dhiiri gelinayo, laakiin aftida ugu dambaysa golaha guud uu markaasi u codayn doono. tii ugu dambaysay kaalinta koowaad waxaa timid haweeneyda lagu magacaabo Caroline oo iyadoo ah wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Guyana iminkana ah ambassador. waxay heshay 8 cod oo dhiirigelina. kaalinta labaad waxaa wada galay Rebecca oo ka socota Costa Rica iyo Rafael Grossi oo ah Argentine oo min waxay heleen 7 dhibcood. marka saddexdoodaas ugu horeysa laga yimaado waxaa kale qolyo kale oo iyaguna quldareynaya inay xogayaha guud ee qaramada midoobay ay noqdaan. waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee waddankaasi Senegal ee qaaradda Afrika Macky Sall. waxaa ka mid ah haweeneydii madaxweynaha ka ahaan jirtay waddankaasi Chile oo iyadana lagu magacaabo Michelle Bachelet. waxaa kale oo ka mid ah wasiirkii arrimaha dibadda marna noqday gudoomiyaha ama madaxweynaha golaha guud ee Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa oo shakhsigaas uu yahay Maria Fernandez. waxaa kale oo quldareynaya shakhsi kale oo ah diblomaasi ka socda dhinaca waddanka Uganda oo ah Olara Atuno. waxaa kale oo jira shakhsi kale oo isla Ecuador ka socda oo lagu magacaabo Ivioni Abaki. lama oga cidda guuleysan doonta, laakiin tani waa mid 15 waddan kaliya ku eg. laakiin marka la gaaro waqtigeeda waxaa codayn doona guud ahaanba golaha guud ee Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa si loo helo shakhsiga markaasi isagu noqon doona xogayaha guud ee Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa oo ah ilaa iyo 200 oo waddan ku dhawaad oo iyagu fadhigooda uu yahay magaalada New York oo ah meel iyadu u ah xarun mudaba Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa qaybo kamid ah laamaheeda iyo xaruntooda weyn. intaas ayaan kusoo qatimaynaa wararkayagii aad kala socoteen marka la fiiriyo CID Pro TV ee subscribe xagga YouTube-ka, xagga Facebook-ga iyo xagga TikTok-ga. tan iyo kulan dambe Maxamed Axmed Xaaji Maxamed Cagmadhig iyo bahda CID oo isku duuban waxay idin leeyihiin kalama tagin waa wada joognaaye. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.